السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل wanaagsan saaxiibada sharafta leh ee gaxlan barta YouTube-ka Axmed Baqay ee baraha bulshada. Maanta waxaan idin wadaa warbixino muhiim ah oo quseeya dadka Jarmalka, Soomaalida iyo waliba caalamka. Dhowr qodob ayaan wararkeena maanta ku falanqeyn doonaa insha Allah. Waxa qaybaha koowaad ka mid noqon doona xaaladda coronavirus ee dalka Jarmalka oo maanta ah maalin ka duwan maalmihii kale. Sidoo kale isla coronavirus wadankii ugu horreeyay ee intii corona bilowday markii ugu horreysay ee Jarmalka lagu tilmaamo wadan xaaladiisu khatar tahay isla markaasna wadan ka mid ah wadamada Yurub uu mamnuuco inuu dalka Jarmalka ama dadka Jarmalka ka imanaya ay wadankiisa soo galaan sababo la xiriira xanuunka coronavirus awgeed. sidoo kale wadanka Jarmalka oo qaar wadamo cusub oo ka mid ah wadamada Yurubta isaguna sii saaray inay ka mid yihiin wadamada xaaladoodu aanay fiicnayn. sidoo kale waxaan eegi doonaa qofka karantiinka haddii karantiin lagu geliyo kadibna karantiinka ka dhiga adeegtid isla markaasina aad guriga ka soo baxdid lacagta lagu ganaaxi doono oo 10,000 oo euro ah. gobolada ku dhawaaqay iyo qaabka dadkaasi lacagaha looga qaadayo ayaynu eegi doonaa. sidoo kale qodobada wararkeena aynu ku falanqeyn doono waxaa ka mid noqon doona macalin laba gabdhood ardaydiisa ka mid ah isticmaali jiray oo la qabtay. gabadhii Soomaalida ahayd maanta maxkamadda xukuntay iyo waliba waxaan falanqeyn doonaa gabadha lafteeda qaabkii maxkamadda intii ay socotay iyo xidhiidhadii lala sameeyey wadankii si loo hubiyo arrintaasi iyo waliba qaabkii dowladda Jarmalka iyo Soomaaliya ay wada macaamileen ayaynu ku wada falanqeyn doonaa barnaamijkeena. sidoo kale waxaan eegi doonaa ninkii mucaaradka Ruushyaanka ahaa oo dalka Jarmalka la soo gaarsiiyey. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu wararkeena maanta ku falanqeyn doonaa. halkaad iga daawanaysaana waa barta YouTube-ka Axmed Baqay. fadlan ha hilmaamin subscribe tiraahdi sii sheergaraysid siina gaarsiid saaxiibadaada ku sugan guud ahaan caalamka iyo Soomaalida. waa tahay xaaladda coronavirus ee dalka Jarmalka ayaan ku bilaabi doonaa haddii aan idin xasuusiyo maanta taariikhdu waa 22 bisha 8 2020. dabcan waa maalin sabti ah, jawi fiican iyo nolol fiican. Axmed Baqay ayaa barnaamijka inta dhiman idiin daadihin doona. haddaynu eegno xaaladda coronavirus sidaad ogtihiin muddooyinka u dambeeyey tiradu way soo kordhaysay. maalintii u dambeysay aan halkadi ka sheego waxay ahayd in la diiwaan geliyey 1,700 oo qof. haddaba maanta waxa ay gaadhay heer aanay in muddo ah aan xanuunka coronavirus gaadhin. waa 2,430 qof oo kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah ayaa la diiwaan geliyey. xaaladaasi ayuu maxadka Robert Koch ku tilmaamay inay sabab u tahay safarada dadku u safrayaan ama ka safrayaan kasoo laabanayaan wadamada risikada ah ama dalka Jarmalka ku tilmaamay inay khatar caafimaad yihiin oo hore ugu dhawaaqay wadamada Spain iyo Croatia. maantana uu wadamo iyo magaalooyin cusub uu ku daray ayaa waxaa loo sababeynayaa inay tiradaasi kor u qaadayso. sidoo kale waxaa sababta ugu badan keeni kara xafladaha, munaasabadaha iyo kulamada ay dadku guryahooda ku qaataan oo si caadi ah ay dadku iyagoo aan cabsi qabin ay u isticmaalaan isla markaasina isugu soo dhawaadaan. mudaharaado dhowaan ka dhacay dalka Jarmalka magaalooyin waaweyn oo ka mid ah ayaa iyaga laftoodu tirada aad u sii badiyey. haddaba arrintaasi iyadoo laga duulayo iyo waxau dalka Jarmalku ku tilmaamay isla markaasina bulshaweynta dadkan raja Jarmalka ku dhaqan u sheegay inaanay booqan magaalooyinka ay ka mid tahay caasimadda dalka Belgium Brussels iyo Ufatal oo iyaduna ka mid ah isla wadankaasi Belgium ayuu ku tilmaamay meelo khatara. waxaanu muwaadiniintiisa uga digay inay booqdaan, balse guud ahaan wadanka Belgium waad booqan kartaa si caadi ah. laakiin labada magaalo haddii aad aadid oo ka soo laabatid waxaa qasab kugu ah inaad baaritaan martid ama karantiin 14 maalmood aad gashid. haddii aad qarsatid oo aad gaari ku timaadid balse aan shaacin, xadhig ama ganaax ayaad la kulmi kartaa. haddaba dowladdii u horreysay ilaa iyo tan iyo waqtigii xanuunka coronavirus uu bilowday oo aad ogtihiin dalka Jarmalku inuu ka mid ahaa wadamada ugu fiican dhanka coronavirus aadna loogu ammaanay ayaa waxaa maanta lagu ku dhawaaqday wadankii ugu horreeyay in dalka Jarmalka uu yahay wadan khatar ah oo aan la geli karin xanuunka coronavirus awgeed. dalka Finland ayaa waxa uu muwaadiniinta Jarmalka ah ama ka imanaya ama jooga uu u sheegay inay xidhan tahay ama mamnuuc tahay laga bilaabo toddobaadka soo socda dalxiisayaashii ka imanayay dalka Jarmalku inay wadankaasi Finland booqdaan. marka wadanka Finland ahaan ayaa dadka Finland ayuu u sheegay in wadanka Jarmalku yahay wadan risika ah
qofkii tagaana uu khatar ku yahay, sida uu jarmalka wadamada ay Spain iyo Croatia ka mid tahay uu u sheegay. laakiin waxaa cajiib ka dhigaya inuu noqdo markii ugu horreysay ee waddanka jarmalka lagu tilmaamay inuu waddan khatar yahay. isla coronavirus ayaan ku jirnaaye gobolka Nord Rhine-Westphalia madaxweynahooda Helashid ayaa waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan in qofkii karantiin la geliyo kadibna karantiinkaasi ka dhiga adayga isaga oo xanuunka coronavirus uu ku dhacay oo laga helay ama looga shakiyey kadibna karantiin gurigiisa lagu geliyey karantiinkaasi kasoo baxo isla markaasina danihiisa iska qabsado inay ka fikirayaan qofkaasi lagu ganaaxi doono lacag dhan 25,000 oo euro qofkii arrimahaas jebiya. sidoo kale ganaaxyo kale ayaa loo qorsheynayaa dadka safarada kaga imanaya wadamada kale ee risikada ah ee dalka Jarmalka kusoo laabanaya. laakiin arrintaas weli lama hirgelin. marka la hirgeliyo ugu horeysa halkan ayaan insha Allah idinkala socodsiin doonaa. waa tahay qodobka xiga ayaan eegi doonaa. macallin ka mid ah macallimiin u dhigi jirtay arday ayaa waxa la qabtay kadibna lagu soo eedeeyay inuu isticmaali jiray 2 gabdhood ama hablood oo yaryar oo ardaydiisa ah. muddo ayay arrintaasi socotay oo cidi war kama yahayn, balse mar dambe ayaa gabadhaha mid ka mid ah oo la hadlaysa dhakhtarkeeda cilmi nafsiga. dabcan dadka caddaanka Soomaalidu waxay u yaqaanaan qofka la hadla dadkaasi inuu qof waalan yahay, laakiin dadka inta ugu badan way leeyihiin dhakhtarro cilmi nafsi ah oo qofka haddii uu diiqad ama dhibaato uu dareemayo uu ku nafiso una sheego dhibaatada haysata si uu dhakhtarkaasi uga caawiyo. hadduu dawo u baahan yahay inuu qoro, haddii kalena af ku caawiyo qofkaasi uu furfuro si uu qofkaasi nafis u dareemo oo uu la hadli karo qofka uu doonayo inuu markaasi la hadlo. waa tahay 2 gabdhood mid ka mid ah ayaa waxay dhakhtarkeeda u sheegtay inay arrintaasi jirto. kadib booliska ayaa ninkaasi qabtay, waxaana la helay inay jirto gabadh kale oo iyaduna gabadhaasi la arday ah oo isla gabadhaasina uu isticmaali jiray in muddo ah. haddaba waxaan uga digayaa macallimiin ardayda Soomaalida waxaan ka wadaa waalidiinta inay la hadlaan ardaydooda inta aanay arrintu faraha ka bixin. ardaygaaga markuu iskuul aado, ha yaraado ama ha weynaado, wiil ha ahaado ama gabadh ha ahaado, la hadal, ka wareyso iskuulkiisa maalinta, la sheekayso, saaxiib la noqo si aad uga heshid xogta u baahan yahay. inta muddo sanada kadib isagoo dhibaato ku jiray inuu qof kale u sheegi lahaa ama arrintaasi soo bixi lahaa. qodobkaasi haddaan intaa kaga gudbano waxaan eegaynaa gabadhii Soomaalida ahayd maxkamaddu xukunka ay ku riday. haddaba gabadhani oo waddanka timi 2017 sida qisada badankiina ku haysaan ayaa waxa ay interviewgeedii ku sheegatay in la kufsaday kadibna dadkii kufsaday mid ka mid ah ay muddo kadib meel ka heshay kadibna ay mindi ku dhufatay. haddaba sida ay warbaahintu dalka Jarmalka qoraysa ayaanu inagu falanqeynaynaa waxyaabaha dadka kale leeyihiin waxbay nagama gelin. laakiin gabadhaasi waxa ay maxkamaddu markii interviewga laga qaaday dadkii banfa interviewga ka qaaday ayaa booliska u gudbiyay isla markaasina gabadhii dacwad ku soo oogay. dacwadaasi oo ahayd in ay samaysay isku daydil. intii dacwaddu socotay waxa ay maxkamadda dalka Jarmalku ay isku dayday inay xog ka ogaato qofkii dhibaatadaas loo geystay iyadoo la xidhiidhay dowladda Soomaaliya si ay u ogaato in qofkii dhibta loo geystay uu dhintay dhibtii, oo haddii uu qofkaasi dhintay ay noqonayso inuu qofkan uu dil geystay, haddii aanu dhibanna markaasi marba dhibkiisa qofka uu geystay lagu xukumi karo. balse xidhiidhka ay la samaysay dowladda Soomaaliya ayaa ay waxba ka faa'iidi waayeen oo wax xog ah oo arrintaasi ku saabsan dowladda Soomaaliya dabcan kama aysan hayn. balse dad la waraystay oo ehelada iyo dadkii u dhowdhowaa sida ay warbaahintu qoraysa ah ayaa waxay sheegeen in ninkaasi wax dhibaato ah gaadhin oo calaamad yar oo ku dhacday kadibna uu caafimaad qabo uu damihiisa iska qabsanayo. saas daraaddeed ayaa gabadhan oo ah hooyo haysata 2 carruur ah waxaa lagu xukumay 6 bilood oo xadhig ah. xadhiggaasi jeel kuma qaadanayso, gurigeeda ayay joogaysaa maadaama aanu jirin qof dacweeyey oo dhibana dacweeyey, sidoo kalena qofkiina aanu dacwaddii dhammaystirnayn ayaa waxaa lagu xukumay gabadhaas 6 bilood inay gurigooda joogto, danaheeda iska qabsato, noolaato, balse aanay wax dambiye gelin. haddii dambi gashana ay xabsiga ku dhammaysan doonto 6 bilood. marka hooyada Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay
lixda bilood caafimaad qab iyadoo aan wax dhibaato geysan iskana ilaaliso sheekooyinka iyo weliba hagbadaha ay dumarka la gelayso sababtaa dhib badan ayay ku noqon kartaa. waa tahay intaas haddaan kaga gudubna waxaa jira qodobo kale oo iyaguna aan warkeena ku falanqeyn doono. diyaaradii loo diray ninkii mucaaradka ahaa ee dalka ruushka madaxweyne putin kasoo horjeeday ayaa maanta soo caga dhigatay magaalada Berlin ee caasimada dalka Jarmalka, waxaana ninkaasi lagu daweynayaa magaaladaasi Berlin. haddaba maxay tahay qisadani? sabab maxaa kalifay sidee u dhacday? waxa madaxweyne putin xukuumaddiisa ayaa waxay ansixisay ama meel marisay sharci siinaya putin inuu madaxweyne noqon karo ilaa inta uu geeriyoonayo, inta noloshiisa ka dhiman inuu u tartami karo, xilka sii hayn karo. taasi oo mucaarad fara badan ay kasoo horjeesteen oo ninkani ka mid yahay. marka waxaa looga shakisan yahay ninkani in uu la sumeeyey, balse ilaa hadda cid caddayn karaysa ma jirto. inta badan haddii siyaasi kasoo jeeda dalka ruushka ama kasoo horjeeda xukuumaddaasi ruushka, waxaa dhibaata ku dhacda inta badan fikirka ugu horeeya dadka maskaxdooda kusoo dhaca waa in la sumeeyey. sababtaa waxaa inta badan lagu tusaale qaadanaya qisooyin iyo dhacdooyin hore uga dhacay caalamka oo dad jaajuus ah ama sirdoono ama dad kale oo dalka ruushka u dhashay wadamo aan wadanka ruushka ahayn banaankiisa lagu sumeeyey. haddaba ninkan u xanuunsaday kadibna isbitaal baa dhigay. dowladda Jarmalka ayaa diyaarad u dirtay si ninkaasi loo soo qaado, balse dhakhaatiirta ayaa marka hore diiday, balse markii dambena way ogolaadeen oo waa la soo qaaday oo dalka Jarmalka ayaa la keenay. qodobka ugu dambeeya warkeena waxaa noqon doonaa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ama WHO ayaa waxa ay markii ugu horreysay ku dhawaaqday inuu maaskaruhu sharci ku yahay qof kasta oo dunida ku nool oo da'diisu ay ka weyn tahay 12 sano jir. haddii ay da'daadu ka weyn tahay 12 sano jir, kama wado dadka 12 wixii ka yar isku dhiibay. almuhiim waxaan ka hadlayaa waxa ostfacekaaga ama aqoonsigaaga kugu qoran haddii ay ka weyn tahay 12 sano jir, khasab ayay kugu tahay maaskaruhu meel kasta aad ka joogtid. laakiin waxaan isweydiiyey markaan qararkaasi arkay, wadankii ama geeska Afrika ama Afrika oo dhan sharci kama aha maaskaraha la sheegaya. haddad magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Jabuuti war ma hayo, ma caddayn karo. laakiin horta Hargeysa iyo Muqdisho sharci kama aha haddii run la sheegayo. oo xablada la iska dhigtaa, showyaa la iska dhigtaa, waa la iska baashaalaa, cid maaskara xidhan ma arag. xitaa ragga waaweyn siyaasiyiinta markaa arkaysa telefishinada ka hadlayaan waxay soo xidhaan galofisyo cadcad kuwa dhakhtarada ah si maaskarahana intan soo qaabistaan. ama laakiin galofisyadan laftoodu wax fiican maaha, dhakhaatiirtuna waa ka dayrisay oo dhibaata ay iyagaaba inta ugu badan faafiya xanuunka. maaskarahana caadi uma xidhaan, badankooda uma xidhaan. iyagoo maaskara xidhan bay haddana saa isugu soo shuubayaan, kamarada hortaagan bay 20 hareeraha kasoo istaagayaan, 10 qof bay ku taagan yihiin intaa yar ee kamarada horteeda. marka sharciga qabanaya ma garanayo, kolley sharcigoodaas waa sharciyo iyaga u gaar ah. hay-adda caafimaadka huuna iyaga ma maamushaa filaya oo lagalama tashan markii sharcigaasi la sameynayay. waad mahadsantii saaxiibayaal, meel kasta aad joogtaan farxad ku noolaada. intaan maalin kale kulmayno waa Axmed Baqayo idin leh, WHO ha noolaada.